Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Somali Tutorials. Fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho casharo badan. Maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa cashar ama horudhac ku saabsan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator waa application xoog badan kaasoo kuu sahlaya inaad waxyaalo badan ku sameysid sida boorarka, ID kaarada, banner designs-ka, waxyaalo badan baad ku sameysan doontaa insha Allah, loogooyinka. Waana app fudud oo aad u fudud, marka insha Allah kusoo dhawaada cashar introduction oo ku saabsan waxyaalo badan aad ka fahmi kartid Adobe Illustrator. Adobe Illustrator horta waxa ugu fiican inaad fahantid waa kuwa toolashan inaad isticmaashid, toolashan isticmaalkooda inaad fahantid. Marka toolashan waxaan rabaa inaan idinka tuso kuwa ugu fiican, kuwa ugu isticmaalka badan ama uguna fudud la isticmaali karo markaad beginner tahay aad isticmaalaysid inta badan isticmaalaysid. Marka insha Allah kusoo dhawaada Somali Tutorials. Fadlan subscribe saar channelkeena si aad u hesho xogo badan oo ku saabsan graphic designs-ka sida Adobe Illustrator, After Effects, Premiere Pro iyo Photoshop. Waxyaalo badan oo ku saabsan baad heli doontaa insha Allah. Kusoo dhawaada casharkeena. Casharkeena wuxuu ku saabsan yahay maanta tool kamid ah Adobe Illustrator sida loo isticmaalo. Adobe Illustrator waxaan ka bilaabeynaa ellipse toolkan ama toolkan oo ku wada jiraan rectangle, rounded iyo ellipse tool iyo polygon iyo star. Ellipse tool waxaad sameynaysaa, waxaad ku sawiri kartaa circle inaad sawirtid. Circle saa u sawirto, haddaad circle caadi saa u sawirto wuu kaa kala dheeraanaya wajida. Marka laakiin haddaad la taabato shift iyo alt, centerku ka bilaabaya perfect circle baad sawiraysaa ama circle qurux badan buu ku sawirmaya wajida. Marka saas circle qurux badan u sawirto waxaa la taabanaysaa shift iyo alt la taabanaysaa. Marka insha Allah naga tir hadda uma baahnin. Waxaa kaloo muhiim ah polygonka markaad rabtid inaad sawirtid oo saa u sawirtid, polygonka hadda wajida dhinacyo geeso badan buu leeyahay. Si aad geesaha ama u yaraysid ama u badisid waxaad isticmaalaysaa falaaraha. Falaarta hoose haddaan isticmaalo wuu yareynaya wajida. Hadda rectangle buu ku soo celiyay wajida. Marka kor u sii wadina kuu sii badanaya u badanaya marna waa ka sii yaraanayaan. Hadda waa u batay zaid buu noqday wajida. Waa yareynaa waa badinaynaa hadda mid kale taa sameynaysaa hadda. Marka waxaa noogu xigi doona starka sidoo kale ayada polygonkaas oo kale weeye. Marka waxaad sameynaysaa waa sawirna hadda wajida way geesa badan tahay. Geesaha saa u yaraysid falaarta hoosaad ka wadaysaa. Saa u badisid falaarta kor u wadaysaa. Saa u yaraysidna falaarta hoosaad isticmaalaysaa. Marka waa muhiim starka saa u sawirtid ayadana. Marka waxaa kaloo noogu xigi doona inaan sawirno pen toolka saa wax ku sawirtid. Pen toolka saa wax ku sawirtid marka hore hal meel baa kaliya ku siinaysaa wax rabtaa ku sawiraysaa. Marka wajida line xoodan baa sawiraysaa. Kadib haddana waxaad sameynaysaa mid kale sawiraysaa haddana. Waxaan sawirnay caleen baa sawirnay wajida. Caleen baa sawirnay. Marka waa muhiim weeye, aad buu muhiim u yahay isagana. Waxaa kaloo noogu xigi doona text toolka. Text toolka options badan buu leeyahay. Si optionskooda u aragtid right click baa siinaysaa. Tool walba markaad kor tagtid hadduu options badan leeyahay right click baa dhahaysaa. Options badan baa ku soo baxay wajida. Si hadda aad textiga optionskiisa u aragtid right click baa dhahaysaa. Intaanoo options ma waa intuu si doona sida loo isticmaalo, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa waaye inaad hadda wax ku qortid. Si aad wax u qortid right hadda tida sa tagaysaa garday. Tida soo doortay. Tida markaad tagtid waxba qoraysaa. Carabi baa qormay iska dhaaf. Carabi baa qormay. Marka bedelna insha Allah. Hadda waxaan sawiraynaa waxaan rabnaa inaan qorno. wajida waxaad rabtaa qoraysaa. Marka wax qorto waxaad rabtaa qoraysaa. Saart wax kasta saa ugu qortid marka tidaas soo dooranaysaa. Marka example maalin ka tusaya marka type on a path option bar iyadana inaan tuso optionkaas rabaa haddana inaan tuso circle korta noo soo samey. Circle markaa noo soo sameysid. Circle markaa noo soo wartid
strogiisa filk wax ka dhigta madow ka dhig, filkiisana wax ka dhigaysaa none. Marka saas ka dhigno type on a path option baa soo dooranayna markaa soo dooratid halkaas red click dhahaysaa uu ku wareegaya ma jeedaa. Hadda qoraalkaas si ma ugu qoran yahay tabtaas kale ugu wareegaya soo jeedid circle-kii qoraal baa ku kor qormay ma jeedaa. circle-kii qoraal baa ku kor qormay marka saas circle qoraal ugu kor qoratid waxaad isticmaalaysaa type on a path toolkaas isticmaalaysaa soo fahmin. marka waa kaas waxaa kaloo muhiim inoo ah reflect toolkan ina isticmaashid iyo rotate toolkan. Si aan rotate tool u isticmaalno iyo reflect tool inoo soo qor bahalkan inoo soo dooro rotate-ka noogu hormari. rotate-ka marka horta waxaad rotate ku sameynaysa soo dooro marka hore rotate toolka tag anchor point uma jeedaa bahalka dhexda yaala halkaas u keentid laba option baa u keeni kartaa inaa inta alta qabatid aad meeshii uu yaalay kor tagtid aad soo qaadid ma jeedid halka geysid kaas hadda meesha hadba meesha rabnaa geen karna ma jeedaa. copy baan dhahaynaa hadda waa kaas noo copyey. mid kale aad samayn kartid waxaa waaye inaad inta tagtid aad halkaa tagtid aad alta qabatid aad click ku siisid soo jeedid waa isku mid labada option labadaba samayn kartaa. reflect toolka ku soo haray reflect toolka waxaad samaynaysaa asna waa sidoo kale wey midkaan mid lamida unba ku sameynaya oo isla sidiisa kale soo jeedid. marka waxaad samaynaysaa hadda xageeba ku sameynaya isla meesha naftarkeeda ku sameeyey hadda laba inoo noqoto fiirday kala qaad waa kaas isla kii oo kale unba ku sameynaya. marka labadooda muhiim wey aad bay muhiim u yihiin. waxaa kuu soo haray shape builder tool baa kuu soo haray. shape builder toolka wuxuu kuu sahlayaa fiiri midkan horta ka koobiyeynayna control c control f noo kala wareeji soo jeedid. marka saas markaan niraahno oo aan shape builder toolka soo doorano waxaan samayn karnaa inaan halkan ka saarno soo jeedid inaad ka saartid inaad dhexda ka saartid. mid kale aad samayn kartid waxaa waaye inaad shape builder toolka inta soo dooratid ay unite ka dhigtid adoon haddaa alta la taabana fiiri minus bay noqonaysaa ma jeedaa minus bay noqonaysaa karsarka fiiri hoostiisa calaamadda uu wato minus buu noqon. haddaan ka foq altadana muxuu noqonayaa plus buu noqonayaa. marka plus markuu yahay waxaa waaye waa unite ka dhig waa mideey fiiraday waa mideey fiiraday markaan hadda halkan mid ku dhufto isdhaho waa midaysan asaga dhan hal mid buu ii noqdo ma jeedaa. marka si aan qayb kaliya uga jarana waxaan samayn karaa altan taabanaya click baan siinaya waa baxday intaasna waa baxday. hadda intaan weli ma midaysna laakiin saa u midaysid waxaad samayn kartaa inaad saan dhahdid okay waa midaysanta intaan ma jeedaa waxbaan nooga soo baxay meesha soo ma jeedid waxaan rabnaa waxbaa noo soo sawir waxaa rabtaa ku sawiri kartaa marka waa kaas intaas aan rabo maanta inaan baro insha allah casharo badan baad la socon doontaan mahadsanidin fadlan kusoo dhawaada Somali Tutorials.